fadhigii ugu horreeyay noo suura galay madaxweynaha la yeelanay qodobada ugu weynaana wuxuu ahaa bal waxa uu yahay programka aan dejinaynaa 60 bilood 90 bilood inaanu dalka iyo dawladda iyo madaxweynaha dhammaantood isla qaadanno inuu yahay kuwa ugu habboon lagu suura gelinayo himilooyinka dhaqaalaha kobcintiisa iyo kordhintiisa waxyaabaha ugu badan aan ka hadlayna waxay programma walba soconayay inaan ka tala bixino Soomaali waxay tiraahdaa war la helaa tala la helaa marka talooyin bixinuuna isaga ka timiyo annagu waxaanu madax ku haynay baan isugu yaarsanay marka madaxweynahaasi aan aad ugu mahad uga celinayno ayuu wuxuu nala qaatay waxyaabaha hadda food saaran oo arrimaha kan deynka Soomaaliya si looga cadfiyahay waxyaabahan hadda aad iyo aad adduunka maalul bashaabad la saarayo Soomaaliya musuqmaasuq ku baahay waxyaabaha noocaas bal sidii wax looga qaban lahaa wada gudidan inay ahmiyad u leedahay waxa muujinaya 60 sano naga qaadatay gudi noocaana la sameeyo oo la yiraahdo ka tala bixiya dhaqaalaha qaranka ma aha mid gobol ma aha mid dawlad federaal waxa uu qarankan wuxuu ku horumar ku tiigsan karaa xagga dhaqaalaha asbaabta aan aad ugu diyaarnahay inaan wixii awoodanaga ku jira ka qabanana waxa weeye marka ugu horeysa fiiriya dalalka hore u maray ee kuntanka sanaad hadday Kuuriya tahay hadday Malaysia tahay hadday tahay maxaan idhaahdaa Singapore dad caynkaas oo kala bixiyaan ayaa wax la weydiiyay waxa naloo xilsaaray inaanu gadaal u fariisano arrimaha masiiriga ee dalka haddii dhalinyarta shaqo loo sameeyay haddii cunto isku filan aan soo saarayno annagoo qoran maahay inaan expertise helno waxaan wax ka qabto hawshan diyaarka u nahay waa taas